Ciidamadu waxa ay dileen 15 qof waxayna meydkooda ka laalaadiyeen gebi buur ku yaala. Baaritaan dheer kadib ayaa la ogaaday dil wadareedyo muddo la qarinayay. Ku soo dhawaada Qowl Media TV, waxaanu xogta qarsoon idinkula wadaagi doonaa xasuuq iyo gaboodfallo loo geystay dad rayid ah. Ciidamadu waxa ay dileen 15 qof waxayna meydkooda ka laalaadiyeen gebi buur ku yaala. Baaritaan dheer kadib ayaa la ogaaday dil wadareedyo muddo la qarinayay. Muuqaallo caddayn ah oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay rag hubeysan oo ku labisan darees ciidan oo tooganaya koox dad ah kadibna meydadkooda ku laadaya gebi dheer meel buur ah oo ku taalla waqooyiga Itoobiya. Halkaas oo iska horimaadyo naxariis darro ah uu ka socday ilaa bishii Noofembar sanadkii aynu soo dhaafnay 2020. Ugu yaraan 4 fiidiyow oo dheeri ah ayaa lasoo dhigay internetka oo muujinaya dilalka dadka rayidka ah. Bishii Maarso, baaritaan ay sameysay BBC Africa Eye ayaa lagu caddeeyay in ay caddayn u tahay xasuuqa ay geysteen ciidamada Itoobiya. Fiidiyowyadu waxay muujinayeen xubno ka tirsan ciidamada Itoobiya oo tooganaya dad ku dhow halka ay joogeen. Sidoo kale, askarta ayaa si furan ugu jeesjeesayay una caayayay dadka dhintay. Waxaan jeclaan lahaa in aan ku shubno gaas oo aan gubno, cod ayaa laga maqlayay mid ka mid ah fiidiyowyada, halka codka labaad uu lahaa u gub jirkooda sidii hindida ay samayso oo kale. Naxariis ma muujinayno. Cod nin kale oo hubeysan ayaa sidaasi ahaa. Goobaha saxda ah ee xasuuqa fiidiyowyada laga duubay. Baaritaanka ayaa lagu ogaaday in dhacdada ay ka dhacday meel u dhow magaalada Mahbedego ee waqooyiga gobolka Tigreega dhacda ee Itoobiya. Tigray waxa ay noqotay xarunta dagaalka ba'an uu ku dhex maro ciidanka Itoobiya iyo Jabhadda Xoreynta Dadka Tigreega ee loo garan ogyahay TPLF-ta ee horey u maamuli jirtay gobolka. Isku dhaca ayaa qarxay kadib markii dowladda deegaanka ee Jabhadda Xoreynta Shacbiga ee Tigray ay go'doomisay saldhig militari oo muhiim u ahaa Itoobiya. Tallaabadaas oo ka careysiisay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, isaga oo ka jawaabaya wuxuu amar ku bixiyay in weerar federaal ah lagu qaado gobolka, taasoo calaamad u ah bilowga colaadda. Iyadoo aan xal loo helin colaadda ayaa barakicisay in ka badan 2 milyan, iyadoo 4 milyanna ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah. Dhanka kale, Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamo ka soo jeeda dalka ay deriska yihiin ee Eritrea ay bilaabeen inay isaga baxaan gobolka Tigreega. Ciidamada Eritrea ayaa ka garab dagaalamaya ciidanka Itoobiya xilligii ay howlgallada ka dhanka ah TPLF-ta ay ka socdeen halkaasi. Jimcihii, dalalka ku horumaray warshadaha ee G7 ayaa ku baaqay in ciidamada Eritrea ay isaga baxaan gobolka, isla markaana waxay cambaareeyeen dilalka loo geystay dadka rayidka ah iyo tacadiyada ka dhacay gobolka Tigreega. Waxa ay sidoo kale codsadeen in la furo marinka gargaarka bini'aadanimo lagu gaarsiinayo shacabka tabaalaysan ee ku nool gobolka ay colaadda saameysay ee Tigray. Qaramada Midoobay waxa ay marar badan walaac ka muujisay dhibaatada ka taagan gobolka oo adkeeyay howlaha gargaarka. Toddobaadkan, 2 xero oo ku yaala gobolka oo ay ku nool yihiin 2,000 oo qof ayaa la burburiyay halka dhac loo geystay barakacyaasha shacabka ah.